haddaad rabto inaad barato nidaamka loo iibsado guryaha maanta waxaan ku sharaxayaa nidaamka dhan gabi ahaantiisa meeshaad ka bilaabi lahayd ilaa meesha ku dhamaado maalintii furaha lagu wareejinayo walaal soo dhawow magacaygu waxaa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage ama wax loo yaqaano side hustle ama taxi loopholes haddaad garanay arrimahan waxaan ugu soo biiri kartaa live-kayga TikTok 9 p.m. Central Time insha Allah haddaan ugu cusub tahay na soo follow garee videoga ka bato 2 daqiiqo badana YouTube-kayga soo dhiga waan ku bilaabayaa markaad guriga iibsanayso waxa ugu horeeya bangiyada ay fiirinayaan waxay noqonayaan waa credit-kaada waa inuu ahaadaa u yaraan minimum 680 ilaa 700 inuu yahay haddaad garanin meel laga arko credit-kaada waxa aad isticmaali kartaa aabka loo yaqaano Credit Karma ama waxa website waxa aadi kartaa annualcreditreport.com oo shaashada aad ka arki doonto talabaad waa shaqadaada waa inaad shaqaysaa 2 sano la soo dhaafay shaqada waa inaad haystay soo bangiga wuxuu kugu xirayaa pay stubs inaad bixiso aad tusto jeega ugu dambeeyay inaad tusto ama 2 jeega ugu dambeeyay driver license inaad tusto bank statement inaad tusto taas oo ogolanayso in lacag kugu filan si aad ugu qaranto gurigaad markaad iibsanayso tan saddexaad bangiga wuxuu fiirinayaa wax loo yaqaan DTI debt to income ratio wax loo yaqaano oo deenta lagu leeyahay inay yar tahay hadii car payment lagu leeyahay dhibaatay ku geysanaysaa hadii child support lagu leeyahay dhibaatay ku geysanaysaa hadii IRS lacag kugu leedahay dhibaatay ku geysanaysaa hadii lagu leeyahay collection agency lagu diray lacag kugu leeyihiin dhibaatay ku geysanaysaa hadii credit card wax loo yaqaan debt lagu leeyahay intaba dhibaatay ku geysanaysaa marka inta ka soo dhamaatay kadib haddii aad ka gudubto jaraanjaradaasi badanaa dadka ma la fadhiistaa wax loo yaqaan buyer consultation la sameeyaa si aan u ogaado haddaa rabto lacagtaada intaad baabi'in lahayd intaad ka soo reebi lahayd si aan kugu sharaxo dadka badanaa waa la fadhiistaa arrintu waa u sharaxaa hadda inta ka soo dhamaato haddana waxa la yiraahdaa jira lacag down payment la dhaho oo aad dhigaysaa jirta lacagtaasoo badanaa 15% aad dhigi karto ka badan 5% aad dhigi karto iyo lacag kaloo la yiraahdo closing cost jirta iyadana oo 3 to 4% noqon karto so lacagta down payment-ga waxa laga jarayaa gurigaada haduu 300 kun ahaa oo aad dhigta 15 kun dhigto waxa kugu hareysa 285 kun baa kugu hareyso lacagta closing cost-ga lacagtaasi waa lacag aad bixinayso laakiin hal mar baa bixinaysa dibdib kugu soo laabanayso lacagtaasi so hadda ka soo qaado gurigan uu yahay 300 kun haduu yahay lacagtaasi waxay noqon doontaa lacag 12 kun oo dollar bay noqon doontaa lacagta waxa laga yaabaa inay isleedahay lacagtaasi maxay ku baxaysaa dadka badanana su'aasha lacagta closing cost-ga waxa wareeriyay haddaan ku sharaxo lacagta closing cost-ga waxa ku baxayso marka koowaad wax loo yaqaan loan origination fee jira oo ah ninka bangiga aad ku saxiixay ku caawinayo ku approve garanayo lacagtaasi qayb ayuu qaadanayaa loan origination fee badana 1% ay noqotaa lacag kale loo yaqaan jirta appraisal oo ah guriga in la qiimeeyo noqon doona mustaqbalka bangiga maadaama lacagta appraisal lagu siin doono bangiga uu ku qiimeeyay waa lacagta lagu siin doono mustaqbalka tana lacag ku bixi doonto waxa loo yaqaan credit report jira credit-kaada markii la baaray la ogaan inuu fiican yahay lacag baa ku kacaysa waxa kale wax loo yaqaan title search title-kaas dib aan kaga sharxi doonaa company aadi doonto oo in kala wareejin doono guryaha asaga lacag buu qaadanayaa wax loo yaqaan attorney fees jira oo ah ninka lawyer-ka la shaqeeya title-ka lacag ayuu qaadanayaa wax loo yaqaan escrow fees jirta lacagta aan isman diban kaaga sharxi doona iyadana waxa kale oo ku bixi doonta wax loo recording fees oo lagu record gareynayo account-ga lacagtaasi ku bixaysa wax loo yaqaan mararka qaar waxa dhacdo wax loo yaqaan survey jirta fee oo ah gurigaada in la ogaado meeshu ka bilowdo meeshu ku dhamaanayo soo lacagta closing cost-ga qaybta ay ku kacdaa dadka qaar waxay real estate agent inuu qaato ma qaato real estate agent taana marka la ku sharxi doona hadda inta ka soo dhamaato hadda maadaama inaan in sheego ugu daran rabay haddaad guri hadda iibsanayso 2024 lacag baa laga bixinayaa up to laga bixinayaa $25,000 laga bixinayaa down payment dawladda ka bixinayso waa ka soconayaa okay hadda waa isla fahnay soo hadda ka soo qaado gurigaad iibsanayso 300 duu yahay lacagta down payment-ga aad dhigtay 15 kun ay noqotay lacagta closing cost-ga ee noqotay 12 kun gurigaasi waxaad ku iibsanaysaa 27 kun buu noqonayaa soo hadda waxaad u baahan tahay bangi ina aado maadaama hawshan ay ku soo dhamaatay aad ogtahay waxa ku kacaysa everything aad ogtahay bangi ay aadaysaa dadka qaar Islamic Bank bay aadaan badanaa kula taliyaa iyo dadka qaar waxay aadaan bangiyada caadiga toos u aadaan soo kadib taa haday dhacdo bangiga wuxuu ku soo siinayaa warqad loo yaqaano pre-approval letter warqadaas oo ah warqad haddii mustaqbalka guriga iibsanaysa ninka real estate agent ku shaqeynayo uu la dirayo wax loo yaqaan purchase agreement-ga
taasi waa inaad la fadhiisataa qofka real estate agent ku noqonayo qofkaasoo aad ogaanayso uu kuu sheegi doono guriga rabto nooc u yaalo inaad soo ogaato how many bedroom uu yahay how many bathroom uu yahay square feetkiisa locationka ka iibsanaysay waxaas dhan real estate kaada u qaabilsan hawshaasi real estate agent inaad raadisa ayay noqonaysaa hadda real estate agent u baahan tahay aniga way soo qaban kartaa website-kayga saxanrealty.com aad aadi kartaa waa ka soconaya so hadda warqadii waa soo heshay real estate agent waa la fadhiisatay real estate agentigaasi wuxuu ku sameynayaa systemka ayuu ku gelinayaa oo ah guryihii ayuu ku tusayaa suuqa soo galayay guriyihii suuqa soo galay ku tusayaa waxa ku soo gali doona email ba ku soo gali doona emailkaas oo guriga noocaas baa arki doontaa haddaa ka hesho like baa ku dhufanaysaa wuxuu ku laabanaya ninka real estate agentiga kadib ninka real estate agentiga wuxuu ku sameynaya wax loo yaqaan showing oo ah guriyihii buu ku soo tusayaa saad u soo aragto guriga haddaa ka heshay gurigana waa guriga adiga markaad la fadhiisatay aad u sharaxday aad dhahday 4 qol baan rabaa 3 masquul baan rabaa guriga location meeshaas ku yaala barxadii saas waa inaad adiga taa u sharaxdaa taas waa inaad adiga ka imaataa guriga waa ka heshay guriga haddaa ka hesheen then diyaar waay markaas waxaa leedahay ninka real estate agentiga wuxuu sameynaya wax loo yaqaano purchase agreement form contract ayuu buuxinaya wuxuu u dirayaa ninkii guriga iibinaya ayuu u dirayaa listing agent loo yaqaanaa listing agentigaas ayuu u dirayaa saddex baa dhici doonto had markuu taa u diro taasoo ah inuu soo accept gareeyo ama inuu reject gareeyo ama wax loo yaqaano counter offer inuu sameeyo oo ah lacagtii aad noo soo dirtay way yartahay uu ku yiraahdo taa hadday dhacdo kadib waa haddii wax ka soo qaadayna inay ogolaadeen haddii counter offer lacagtii haddana waxaa fadhiisanayo lacagtii way nagu yartay dhahdaan adiga waxaa fadhiisanayo real estate agentigaada waa u sheegaysaa laakiin taas intay dhaceen ka hor ninka real estate agentigaada researchkiisa ayuu sameynayaa waxa loo yaqaano comparative market analysis ayuu sameynayaa research uu soo sameynayaa wuxuu soo ogaanayaa guryaha noocaasi la midka imsa loo kala iibsaday imsa suuqa ka marayaan intuu u dirin ka hor iskamana diraayo so taasi hadduu sameeyo taas oo uu ogyahay guriga noocaasi la midka ah 3 bilood la soo dhaafay waxaa lagu iibsaday intaas 6 bilood intaas lagu iibsaday so wuxuu u dirayaa lacagtii taasi la midka ah uma diraayo lacagta ka hooseyso okay waa ka soconaya taa hadday dhacdo waxaan ka soo qaadayna inay accept gareeyeen haddii accept gareeyeen ninka real estate agentigaada purchase agreementii wuxuu u dirayaa ninkii lenderka ahaa bangiga ayuu u dirayaa wuxuuna la socodsiinayaa in lasoo aqbalay so kadib processka kale markii taas la ogolaado waxaa bilaabmaysa wax loo yaqaano inspection processka kubla gurigii ayaa la soo ogaanayaa inay wax ka qaldan yihiin muhiimna aad bay u tahay dadka qaar hadduu even guriga brand new yahay bac uu yahay oo la dhisay aniga waxaan kula talayaa qofka inuu inspection iska marsiiyo haddii lirada guriga maanta farta laga qaaday dadka qaar way ka boodaan waxaa laga yaabaa hadda shalay waxaa qof iga sheekeynayay oo gabar Soomaaliya ku dhacday guri brand new iibsatay foundationka ayaa wax ka qaldanaa hadda lacag ay ka galayso sidaas waa mosle ha ka boodin waxa ku kacaysana waa lacag 300 ilaa 450 dollar baa ku kacdaa lacagtaadana aday jaabkaad ka bixisa ilaa taas waxay ka badbaadin doontaa madax xanuun iyo qaxar rafaad bay ka badbaadin doontaa waa ka soconaya taasi hadday kasoo dhamaato inspection baa la marsiiyey gurigii hadda cilad baa kusoo baxday ciladaasi waxaa ka heshiinaya ninka real estate agentiga ku ah heshiinayo iyo seller agentiga labadooda heshiinayo so labadooda heshiiska wuxuu ka dhici doonaa in guriga ciladii waxa ka qaldan ay hagaajiyaan oo requirement looga dhigo so guriga lama gabagabayn karo ilaa ay hagaajiyo cilada ama in lacag waxa loo yaqaan credit lagu siiyo lacagtaada laga jaro down payment laga jaro adiga inaad hagaajisanayso so hadaad bixin lahayd down payment oo bixin 20-30,000 bixin lahayd oo kale oo 8,000 cilada tahay 8,000 ka jaraysaa okay saasi midkood baa la sameyn karaa taa hadday dhamaato cilada lagu hagaajiyo everything ninka receipt baa laga soo qaadayaa ninka bangiga waxaan ka wadaa ninka sellerka guriga hagaajinayay mararka qaar mosle waxaan kula talay dadka qaar maadaama ninkan guriga iska leh uu sidaa rabto kugu hagaajinaynin waxaan kula talaya in adiga hagaajisato ee lacagtaasi ka jirto down payment-ga adeena ku fiican tahay maadaama qofkan uu guriga ka guurayo wuu isdhaafinaya wuxuu doonaa ku sameynaya so adiga waxaa xal kugu jira guriga hadduu ciladaysan yahay adiga inaad contractor hayrato sidii rabto lagu hagaajiyo lacagtana ka reebato laakiin waa in la soo ogaadaa lacagta ku kacayso contractor kugu xiraya contractor ka soo ku sheegi doono waxa ku kaci doonto lacagtana waxaan ka jari doonaa lacagta down payment-ga dib bangiga hadda qaybtana imaanayna aan ku sheegay appraisal ayuu ku sameynaya appraisalkan uu ku sameynayo bangiga qof ku taqassuba guryaha nooca la midka misaal ugu iibsada waa ninka real estate agentiga uu sameynaya laakiin qofkan waa bitaqasuskiisa shaqadiisa waxa tahay guryaha noocaas inay qiimeeyaan appraisal ku sameeyaan dadka appraisal ku sameeynaya guriga hadduu ka joogo let's say guriga waxa ku iibsan rabtay 300,000 baa ku iibsan rabtay wal appraisal lagu sameeyay wuxuu noqday 280 so 20,000 baa qad ka baxayso 20,000 waa heshiis ninka waxa lagu laabanaya guriga lahaa baa lagu laabanaya waxa leeyahay guriga saas soo laabtay 90% way ogolaanayaan
وما ديدي كران هدي ديدان the only way ku diidi kara waxa noqonaysaa wax loo yaqaan mar qaar waa very competitive way dad badan baa guriga isku haysto so hal offer boqol qof oo soo dirayso haduu deal fiican haysto kale marka gurigaas ina waysana macquul gal waaye laakiin daa wayso hadii appraisal lagu sameeyo oo soo laabto badana boqolkiiba 90 way qaadanayaan wixii appraisal ku ka dhigay ku qaadanayaan okay appraisal kaasi bankiga lacagtu ku siinayana taas ku xiran tahay hadii guriga ku iibsan rabtay 400,000 oo appraisal ka noqdo 380 ونقضه بنجي أنت عسوك سينيا أنت أبريزل كوده بوكسينيا كبدن كم سينيا سو مهم أوكي then كدب ولا يجود بيا مركل قيمة كدب وحلو جود بيا قيبت أقول تمسوا تايرل كمبني أي لو جود بنيا تايرل كمبني كان شغله كو قمنا تاي فهذا كله هي حسوا جانيا gurigan property title ku soo ogaanaya title-ka ama deed-ka wax loo yaqaan ayuu soo ogaanaya oo ayaas kale gurigan wuxuu soo ogaanaya inta qof uu soo maray lahaanshaha gurigan imsa qof baa ka guurtay oo soo ogaanaya si loo xaqiijiyo waxa kale loo yaqaan escrow service ku sameeyaan kuwa title company-ga oo ah wax loo yaqaan lacag waxa jirta aanis money la yiraahdo oo taasoo ah inaad guriga serious tahay ay tusaysaa ninka sellerka ah waa lacag carbuun laga celinayo badana waxay noqotaa 1% that 1% gaasi haduu guriga 300,000 yahay $3,000 noqon doontaa so lacagta waa laga haynaya waxaana laga jaray lacagta down payment-ga so lacag ay iska qaadanayaan maaha ilaa ka dad isku dayday inaad ka baxdo contract ka baxdo lacagta way ka gubanaysaa okay waa ka socon so lacagtaasi ku haynayaan kuwa escrow lagu yaqaan so waxa kale soo ogaanayaan waxay soo verify gareynayaan waxa oo documentiyada everything of legality wax dhib ah kaaga imaanin bay sameynayaan hadii qaybta ka soo dhamaato soo hagaajin everything title-ka uu clear noqdo waxa kale u dirayaan waxa u gudbinayaan county u gudbinayaan magacaada transfer gareynaya title-ka qofka ka soo wareejinayaan adiga kugu soo wareejinayaan haddii taa dhacdo wax walba ay ka soo xaqiijiyaan inay sax yihiin shaqadoodana waa saa inay soo xaqiijiyaan waxaas oo dhan kadib maalin kale ayaa lagu balaaminayaa oo loo yaqaano final walk through guriga inaad soo aragto wixii ciladihii ugu dambeeyay in la hagaajiyay guriga sidiis inuu yahay wax dhaawac ma ku imaaday wax isbedel ma ku imaaday maya so then maalintaas ugu dambaysa kadib waxa lagu qabanayaa maalin la yiraahdo closing date oo ah maalintii la soo gabagabeyn lahaa ee furaha lagu wareejin lahaa so kadib maalintaasi balanta lagu qabanaya aniga adiga hadda real estate agent aniga aan kula shaqeynayo iyo umada qofka kale family-ga soo raaci karo waa maalin farxadeed waaye waa imaanaysaan meesha ku dabaaldegaysan sawirro lagu galiyaa then gurigaada furihiisa lagu wareejinaya ma isla maalinta hadda rabto waa ku guuri kartaa hadda rabto waxa ka dambeeyo arinta ka dambayso waxa sida u guuri lahayd waxaan kula taliyaa badan oo kale intaas taydin ka hor badan aniga waxaan ku soo ogaan karaa korontada inta ku kaci lahayd biyaha inta ku kaci lahayd trash lacagta ku kaci lahayd waxaas oo dhan anaa ku soo ogaanaya intay dhicin arintaas oo dhan si aad u ogaato markaas gurigaada oo la wareegto wax walba wixii ku kacaya waa ogaanaysaa so saan u dhama saas qaybtaas u dhamaysaa insha Allah hadda rabto guri inaad iibsato waxa ka soo qaban kartaa website-kayga Saxan Realty haddaad rabto inaad barato xirfadaha real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage hawlahaasina waxa ka soo qaban kartaa website-kayga saxaninvestor.com insha Allah wa salaamiya assalamu alaykum